odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle waxay cod dheer ku sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha uu ku tagrifalay awoodda wasaaradda iskana hor keenay bulshada degan gobolka Hiiraan uu u adeego beeshiisa gaarka ah war saxaafadeed kulamo 3 maalmood uga socda degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala beesha Habargidir dawladda Hirshabeelle loogana hadlayay xaaladda deegaanka iyo tabashooyinka beesha ay ka qabto maamulka Hirshabeelle ayaa laga soo saaray qodobadan hoos ku xusan 1 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir waxay u mahad celinayaan mas'uuliyiinta ku matala dawladda Hirshabeelle ee ku yimid baaqi ay horay ugu jeediyeen 2 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxay aad uga xun yihiin in aysan ilaa hadda waxba ka qabanin tabashooyinkii ay horay ugu soo jeediyeen mas'uuliyiinta sare ee dawladda Hirshabeelle odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala beesha iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxay aad uga warqabaan bursiga sida gaarka ah loogu sameeyo qabiilo gooni ah taas oo baalmarsan habqaybsiga beelaha iyo dastuurka dawladda Hirshabeelle iyada oo beesha Habargidir laga siiyay xilal aan u qalmin dawladda Hirshabeelle 4 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle waxay ay halkan ka cadeynayaan in aysan aqoonsanayn aqbali doonin waraaqda qabyaaladeysan ee sharci darrada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday looguna magacaabay gudoomiye ku xigeenada arrimaha bulshada iyo amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan 5 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle waxay cod dheer ku sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha uu ku tagrifalay awoodda wasaaradda iskana hor keenay bulshada degan gobolka Hiiraan uu u adeego beeshiisa gaarka ah 6 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxay la socdaan qorshayaasha lagu marin habaabinayo hay'adaha samafalka gobolka Hiiraan laguna naas nuujinayo hal qabiil iyo deegaano gaar ah 7 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxay cadeynayaan in la musuqmaasuqay lana qabiileeyay gaarkii lagu talagalay barakacayaasha degmada Matabaan oo ah halkii uu ka bilowday halganka argixisada looga xoreynayo guud ahaan Hirshabeelle 8 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle waxay cadeynayaan in garab istaagii ay u sameeyeen halganka dib u xoreynta gobolka Hiiraan loogu bedelay cunaqabateyn iyo in la siyaasadeeyo xuquuqdooda taas oo ay ka dambeeyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan 9 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxa ay xasuusinayaan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar dabageed iyo gudoomiyaha gobolka Cali Jeete in aysan fulin ballantii ay la galeen odayaasha dhaqanka iyo bulshada degmada Matabaan ee sida gobonimada leh u soo dhaweeyay 10 odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxa ay cadeynayaan in aysan suuragal ahayn dib u heshiisiin dhaqan ilaa laga heshiinayo siyaasadda iyo awood qaybsiga gunaanad odayaasha dhaqanka beesha Habargidir iyo xildhibaanada ku matala Hirshabeelle waxay aad uga digayaan waraaqaha baalmarsan dastuurka ee sadbursiga muuqda loogu sameeyo loogu soo magacaabay gudoomiye ku xigeenada arrimaha bulshada iyo amniga iyo siyaasadda degmada Matabaan wixii dhibaato ah oo ka dhashana ay mas'uuliyadeeda qaadi doonaan madaxda sare ee Hirshabeelle odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle waxay ugu baaqayaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in si degdeg ah arintan u soo farageliyo hadii ay jirto wax isku darsi iyo wax wada qaybsi ka dhaxeeya beelaha Hirshabeelle wada dega war saxaafadeedkan wuxuu si wada jir ah uga soo baxay odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee gobolka Hiiraan iyo xildhibaanada ku matala dawladda Hirshabeelle kuwaasoo magacyadoodu ay hoos ku xusan yihiin odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ee Hirshabeelle
نبضون محمد عثمان عصبلة نبضون محمود حسن علي دبر حرر نبضون علي النور محمود نبضون فارح محمد إبراهيم نبضون عبد القادر حرسي حاشي نبضون حسن عبد الله موسى نبضون عبد القادر شيخ سبير شيخ إسحاق نبضون نسيب نور عثمان نبضون عبد السمد داهر حيري وقاس عبد غني سلاد وقاس نبضون عبدي سلاد حيري نبضون فارح حسين عبد الله نبضون علي عبد الله أحمد نبضون أحمد محمد إبراهيم نبضون سلاد علمي ديريه xildhibaanada beesha habargidir ee ku matala Hirshabeelle kow xildhibaan Cabdifataax Jaamac Warsame JK xildhibaan Maxamed Sheekh Ibraahim Maxamed Xiirane xildhibaan Bila Cusmaan Xuseen xildhibaan Xasan Maxamuud Siyaad Indhoos xildhibaan Cabdullaahi Cusmaan Dhoore Duwane wabillahi tawfiiq